maalintii dishay riyada Kylian Mbappe iyo dadkiisa in ka badan 1 bilyan oo qof oo sugayay dhamaadka riyada Argentina iyo Faransiiska dhamaadka koobka adduunka 2022 aynu gaarnay daqiiqadii 23aad Angel Di Maria ayaa loo dhigay rigoro waxaana tuuray ciyaaryahanka Messi oo gool u badiyay si walba ay noqoto Di Maria ayaa noqday xidiga dhaliya goolkii labaad ee ciyaarta qaybtii hore waxa lagu kala nastay 2 gool iyo eber oo ay ku hogaaminayaan xulka Argentina 99% dadku waxay dhaheen waxa la aasanayaa tuunalka iyadoo ay doonayaan Argentina inay qaataan bilada dahabka halka qalinka ay qaadan doonaan Faransiiska maadaama ay u badneed sidoo uu horay u dhahay gabyaaga reer Faransa si walba ay noqoto miyuu bedeli karayaa xidig 2 daqiiqo koobka adduunka oo mondiyaalka kulanka uga adag ee dunida Mbappe ayaa yimaaday si xoog iyo xawaare leh ayaa uu ku dhaafay goolahayaha reer Argentina wuxuuna ka dhigay ciyaarta 2 gool iyo 2 gool oo barbara garba siman 2 daqiiqo oo qura way yaabeen oo reer Faransa waxa ay qaateen in caawa ay tahay habeenkoodii labaad oo ay qaadan doonaan mondiyaalka dunida oo xiriira halka Argentina iyo Milan iyo Messi in caawa ay sanahay kuwa aasanaya xagga ugu sareeyo oo qaadanaya abaalmarinta ugu sareyso si walba ay noqoto markii dib la isugu soo noqday daqiiqadaha dheeriga 108 daqiiqo Messi ayaa ansixiyay oo mar kale u sheegay caasimadda Argentina in loo dabaaldego koobka dunida laakiin waxa diiday Mbappe oo u sheegay khudbadiisa inay dhiman tahay wali oo qaar kamid ah ay u harsan tahay khudbadiisa Mbappe ayaa 118 daqiiqo 2 daqiiqo oo ciyaarta ka harsan ka ansixiyay goolkii saddexaad ee rigoraha ahaa taa oo ka dhigtay ciyaarta barbaro waxa la aastay penalty ala mar rigorayaal markii ugu dambeysay goolahayaha Argentina Martinez waxa salaamay Messi wuxuuna dhahay haddii aad qabataa kubadani waxaan mar kale u dabaaldegi doonaa koobka dunida laakiin haddii aad qaban waysaa kubadan ogsanow waxa soo dhawaanayso in mar dambe aanan isku salaamin madasha noocan oo kala Martinez waa uu shaqeeyay ilaa uu qabtay penalty-yaasha waxayna keentay in Argentina ay ku guuleysato markii saddexaad ee koobka dunida taariikhda marka ay timaado haddii aad daawanaysay habeenkaas wadni kurkurka yaad ahayd ma Argentina iyo Messi ayaa la rabtay koobka dunida markii ugu horeysay mid taageerayaasha Ronaldo oo Faransiiska soo dhaxgalay ayaa ahayd Mbappe qaatay intuu Messi qaadan lahaa ayaa lahayd saaxiibna la wadaag aragtidaada haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir muuqaalkan saaxiibadaada la wadaag si meel leer uu gaaro